galmudug khilaaf ayaa ka jira qofku hadda ka qarsoon yahana lama arko khilaafkeedu marka wuxuu u baahan yahay in inta la iskaga yimaado oo dib heshiisiin loo furo oo dadka aan calooshooda la isku furo waxa la kala tabanaya la xalliyo kadib loo gudbo sidii doorasho dadku ay iskaga ra'yi ka yihiin maamulka jira iyadoon la garab maraynin loo gaari lahaayo galmudug nidaamkeedii u dhisanayd sidii loogu heshiiyey waxaan rabaa marka inaan fariin halkaan uga diro madaxda galmudug ee dhuusamareeb joogta madaxweyne xaaf juhdi badan oo geliyey in maamulka galmudug la mideeyo oo caasimadiisii owdo oo ku shaqeeyo cadaawo badanuna taas ku kasbado oo cunaqabataynta saaran maantay galmudug ay qayb ka tahay waxaan rabaa marka madaxdaas inaan ugu baaqo galmudug waxay doorasho ku gaari kartaa ama dadkeeda la iskula wadi karaa gogol daba heshiisiineed oo madaxda galmudug iyo beelihii 11 ahay oo dhista qayb ay ka yihiin iskulana socdaan aysan ayagu iskala soo horjeedin oo qolo gooni u xujeedanayda aysan jirin madaxweyne xaaf juhdigii uu geliyey deegaankaas sidii dadka galmudug ay u midoobi lahaayeen maamulkan u shaqayn lahaa runtii waa ku mudan yahay sidaa hadda nidaamka uu dhigayana dastuurka dowladda federaalka ay ku dhisan tahay ee ku meel gaarka ah annagu aan haysan ayaa maamulku marka uu dhismo mas-uuliyaddiisa dhismaha iyo isu keenista dadka iyo dhigidda gogasha iyo qabashada doorashooyinka mas-uulka ah dowladda federaalkana waxay ku leedahay dowr fududayna ee dowr ee dadka wax ugu meerida ma lahan horta taasi la ogaado wey waxaan rabaa marka dowladda federaalka inaan halkan fariin uga diro madaxda dowladda federaalka galmudug guri iyo gaari qof leeyaha ma aha ee waa maamul ay ku heshiiyeen 11 beelood oo deegaankan degan madax la doortayna leh waxaan qabnaa marka oon ka codsanaynaa oon usoo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan shuruucda dalka u yaalla ee kan dowladda federaalka ay ku dhisantahay iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay ku dhisayeen qayb ay ka yihiin oo faragelinta galmudug laga dhaafo nin odayahoo nabadoon oo reer guraceel oo xirsi alla magan la dhihi jiray ayaa hadda ka hor wuxuu gatay gaari sabaax xilligii 70meeyadii oo baabuurta ay soo baxdo aadka loo jeclaa xilligaas baabuurta marka waxaa lagu qaadi jiray xoolaha jarka berberaa loo soo ogey jiray marka baabuurkii oo marka inta soo rartay oo ari jara ka soo buuxiyey ayuu isagoo meel dhexa maray ayuu baabuurkii ka gadoomay baabuurkii markuu gadoomay ayaa taraafika u tagay su-aala la weydiiyey marka waxaa lagu yidhi baabuurkan ninkii wada ayaan u baahan ama iska lah anaa wadayu yidhi anaan iska lah ee wixii aad rabtayna weydiiyey bal nooga waranaa lee sidee wuxu dhacay marka wuxuu yidhi baabuurkii hore marka tilmaam inuu ka bixiyo wuxuu yidhi 7 qor oo sabaax ari wada qor anaa gadhay anaa gadhistana qor dowladda federaalka waxaan rabnaa inaan u sheegno galmudug ma ahan sabaaxii xirsi alla magan ee sidoo raba nambaradiisa iyo arigu jira u sheegayeen maamul dhisan oo dad ay leeyihiin oo deegaan ka jira weeye in lagu xurmeeyaan qabnaa dadka deegaankaas ka soo jeeda ee heer dowlad goboleed iyo heer federaalna taladeed in looga dambeeyaan qabnaa reer galmudugna waxaan ka codsanaynaa galmudug daba heshiisiinay u baahanta magaalada maanta aan joogno magaalada maanta aan joogno ee gaalkacyo dib heshiisiinteeda inay ka bilaabato ayaa la rabaa cadaado inaan ku tagna ayaa la rabaa dhuusamareed inaan ku tagna ayaa laga rabaa caabud waaq iyo balanballe iyo deegaanada kale ee xorta ah ee galmudug inaan mid inta u tagno dadkeedii isku keenno uriya diir ka dhigno
maamul ay isku waafaqsan yihiin loo sameeyo ayay u baahan tahay kala qoqobin uma baahna inaad qaybtiina ka qaadatiin ala idinka raba aad iyo aad waa mahadsantahay